halkani waxay ahayd goobtii shalay weerarku ka dhacay. dawladda Kenya waxay keentay ciidamo fara badan dhismaha Westgate Shopping Mall halkaas oo shalay kooxo hubeysan ay weerar xooggan ku soo qaadeen. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhinteen ku dhawaad 59 ruux halka dhaawacan uu ku dhow yahay ilaa 200. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxa ku jiray dad ay qaraabo yihiin madaxweynaha dalkan Kenya Uhuru Kenyatta iyo dad kale oo ajaaniba. sidoo kale waxa ku jiray wiil Soomaaliya oo ku sugnaa dhismaha markii weerarkaas uu dhacayay. wiilka Soomaalida ahna maanta waxa lagu aasay magaalada Nairobi. aaskiisa waxa ka qayb galay safiirka dawladda Soomaaliya u jooga magaalada Nairobi Ambassador Ali Americo. isagoo la hadlayay warbaahinta Kenya ayaa waxa uu sheegay in ay ka dawlad ahaan ka xun yihiin dhibaatada ka dhacday magaalada Nairobi isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dhigiisa ugu deeqay dadkii waxyeelada ay soo gaartay. We are here to support Kenya people and Kenya government. My President Hassan Sheikh Mohamud and the Speaker of the Parliament, the Prime Minister and the whole government of Somalia have joined support of Kenya government's people, and they have also the President condemned 100% on yesterday's acts. Actually, I can say horrendous terrorist attack at Westgate Mall where many people were killed, including children and women. Some of them are still in there. And I just came here and to show the support we have for Kenya government, and our support will continue. We are together in this fight against Shabab. As Somali government, we really appreciate, and we don't know how to repay what Kenyan forces have done for us in matter of liberating some part of Somalia, and KDF is still there. In this matter, again, I want to say that we are together. xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana ciidamada dawladda Kenya ay wadaan sidii lagu soo badbaadin lahaa dadka wali ku jira dhismaha Westgate. dhowr qof ayaa ilaa saaka la soo badbaadiyay waxaana dawladda Kenya ay ku sheegtay in guud ahaan tirada dadka la soo badbaadiyay ay gaarayso ilaa 700 ruux halka dad kale oo fara badan wali ay dhismaha ku jiraan. They should a white cloth and that we should come down. They will come, and then we finally came and they say we should come out. This is my first experience. I'm a foreigner. My husband is working for African Union. I never thought that I would really come out. I was just telling him, look, I'm just going back home. Yeah. Because, you know, you don't know where it will happen. We have only these malls to do our shopping, so I'm really terrified. But alhamdulillah, that I'm safe. saraakiisha ammaanka waxay sheegayaan in lagu guuleystay in ciidamada ay tagaan dabaqa koobaad iyo kan labaad halka iska caabinay ka socoto dabaqyada saddexaad iyo afraad ee dhismaha Westgate. kooxaha weerarka soo qaaday ee dhismaha wali ku sugan ayaa sameynaya iska caabin xoogan. xilliyada qaarna waxay tooganayaan dadkii haystaan. israsaasayn dhexmartay ciidamada iyo kooxaha kale ee ku jira dhismaha Westgate ayaa sababtay in ay dhitaan 2 askari. isbitaalada waaweyn ayaa la geeyay dhaawacyada ugu badan. hay'adda Red Cross Kenya waxay tilmaamaysaa in laga yaabo in dhimashada inta ka badato. madaxweynaha waddankan Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inay ka guuleysan doonaan kooxaha weerarka soo qaaday oo ku sheegay inay yihiin argagixiso. ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo gaaray halka weerarku ka dhacay ayaa sheegay inuu ku xun yahay dhibaatada Westgate isagoo caalamka ugu yeeray in Kenya laga gacan siiyo la dagaalanka argagixisada iyo badbaadinta shacabkeeda. kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalata Soomaaliya ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ka dhacay dhismaha laga dukaameystay ee Westgate Shopping Mall ee Nairobi. sidoo kale waxa weerarka cambaarayay madaxda caalamka oo uu ka mid yahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud, madaxweynaha Somaliland, xogayaha qaramada midoobay Ban Ki-moon, dawladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamada kale ee caalamka. Soomaalida degan magaalada Nairobi ayaa waxa la soo diristay cabsi xoogan maadaama shabaab ay sheegteen mas'uuliyadda weerarka waxaana ka cabsanayaan in howlgallo laga sameeyo xaafadda Islii ay saameeyaan. weerarkan ka dhacay Westgate magaalada Nairobi ayaa noqonaya weerarkii ugu xooganaa uguna qasaaraha badnaa ee ka dhaca dalkan Kenya tan iyo sanadkii 1999 markaas oo weerar la beegsaday safaarada Mareykanka uu ku leeyahay Kenya. Abdullahi Ahmed Nur, Kalson TV, magaalada Nairobi.